waxaan ka hadlaynaa wax loo yaqaano cyber law ama sharciga internetka. Waxa sameeyay sharcigan dawlado badan waxaanu ka kooban yahay dhowr chapter. Introduction-ka maanta qaadanayna cyber law wax loo yaqaan hadda wuxuu ku leeyahay goobta sharciga ah ee la macaamilka internetka wax loo yaqaan encompassing covid kiisaska iyo xeerarka iyo qodobada iyo muranka wuxuu ku leeyahay taas wax intaas way intii saameeysay waxa loo yaqaano isdhexgalka iyo loo marayo iyadoo hab loo marayo computerka waayahay afarta shanta halkaad ku aragtaan waa shanta xukuumaya federal state ama local deegaan ahaan ama state ahaan waxa jirta waxa loo yaqaano trade heshiisyadan dhowr dawladood baa galay waxaana laga galay waxa loo yaqaan cyber law ama sharciga internetka waxaana uu ka kooban yahay oo saameynaya sharciyo kala badan sida tort sharciga tort contractiga intellectual property-ga iyo sidoo kale ka ugu dambeeyay hadaba internetka wuxuu ku leeyahay Niger medium-kiisa caadiga ee cyber law wuxuu ka kooban yahay qodobadan soo socda hadaba qodobadan waa qodobo ay si dhextaala u sameeyeen tusaalahan exmani jurishday dhawaqiisa adag wuxuu loola jeedaa wuxuu ku leeyahay xukunka commonly included clauses in online agreement sharciyada lagu galo online-ka waxay astaanti u yihiin ama u yihiin nustambeed sharcigan way iyo courts maxkamadaha way wuxuu ku xigsiinaya xukunka hadeen wax yar ka tilmaamno xukunku wuxuu initial questions in any laws sharci kasta oo xukumaya oo ayuu soo iskelaya sida tusaalahan subject matter sameeyaha qofka dan wax bila macna sameeyaha haduu macna sameeyo xukunka u dhacaya hadii uu loo ka yaalo ama sharci ka yaalo waxaan u qaybiyay federal district court maxkamadaha guud oo iyaguna laba si qabsamay loo yaqaan patent environment business misor patent of qaar ganacsiga khuseeya iyo qaar iyaga soo simanaya federal court-igu sidoo kale federal court hadii ay arintu gaadho states-ki way dhaaftay local-kiina way dhaaftay sidoo kale waxa jira wax ku leeyahay defamation privacy contract oo ah subject matter-ka qaybihiisa xukunka marka loo galo hadaba xukunka qodobo ayaa meesha ka yaala hadii shakhsi la xukumayo personal wax loo yaqaan personal jurisdiction ayaa loo yaqaan marka xukunka marka personal la xukumayo wuxuu ku leeyahay dacwada legal concerns in cyber law dacwad kasta khusaysan internetka ama sharciga hawada ayaa maxkamadaha ayaa personal ahaan qofka lagu qaadaya waa hadii loo imaado maxkamadaha u gaarka sidoo kale wuxuu ka hadlay wax loo yaqaan due process clauses no person shall be deprived of life liberty or property hantida aqooneed ee meesha taala hadii la isku haysto hantidu sharciga internetka waxa la isku qabsan karaa ma aha hanti meesha taala ee hanti aqooneed waxaan hanti aqooneed weeye hawada waxa ku yaala waa hanti aqooneed oo halka dhigatay marka nuxurka hadalku waxa weeye waxa la isku haysto inuu noqdo hanti aqooneed international waxa jira wax loo yaqaano international COA oo ah hay'adda marka maamulaysa hawada adduunka hay'adaas waxay qarnaqsi ka dhex oogaysaa oo noqonaysa lawyer-ka ama iyada sharciga iyada hawada dawlad leh aqoon iyo sharci iyada mar walba dhex galaysa oo dhex hogaaminaysa markaas